waxaan ka mid ahay akhristayaasha ugu horeeya ee goobta soo gala si ay uga faa'iideystaan cilmiga iyo buugaagta kala duwan ee goobta yaala ha noqdaan buugaagta horumarka ka hadlaysa horumarinta nolosha ee dhiirigelinta suugaanta iyo sooyaalka kale taxanaha aba iyo qoraalka ee anfac waxa ay ku taalaa magaalada Ceerigaab ee xarunta gobolka Sanaag haddaba waxa halkani ku kulmaa dhalinyaro aqoon-yahan ah oo waqtiga ay firaaqada hayaan u yimaada inay akhristaan buugaagta noocyada badan ee halkaasi taala goobtani waxa aasaasay dhalinyaro iskeed isu xilqaamay waxaana ay shaqaynaysay muddo dhowr sano ah naadigan waxa la aasaasay tabaaqadii 2009 iyadoo markaa ay aasaaseen dhalinyaro reer Sanaaga oo lahaa inay markay arkeen in baahi loo qabo inay dadkeenu helaan akhris ku filan oo ay akhris inay dadku u baahan yihiin markay arkeen markay arkeen in dadku qoraalka uu u baahan yahay oo dadku mad weyn noqoto mad wax akhrida waxna qorta inay arkeen markay dadku u baahan yihiin sidoo kale markii la arkay ka dhaqan ahaan dhaqanka Soomaalidu markuu la arkay in faraha uu ka sii baxayo oo mid la toos oo la taaban karo iyo mid aan la arki karin labadaba dhaqankiisa toos ay uga sii baxayaan saaxadii dhaqannimada ee Soomaalida ee waqtigan ama casrigan dambe duruufahaas markay arkeen kadib ayaa dhalinyaro reer Sanaag isku dayeen inay abuuraan naadigan akhriska iyo qoraalka iyo dhaqanka anfac ee gobolka inta kadib dadaal badan ay geliyeen dhalinyaradaasi waxay hirgeliyeen oo ku guuleysteen kamida naadigan akhriska iyo qoraalka iyo dhaqanka marka laga bilaabo 2009 dabayaaqadii ilaa iminka oo u dhaxaysa oo ku siman muddada u dhaxaysa 12 sano ay kor u dhaafi karto ayuu dhisan yahay sidaas uu ku abuurmay laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa waqtiga habeenimada ah waa goob u furan dhalinyarada haldoorka iyo aqoon-yahanka magaalada Ceerigaab dhalinyarada kale ee dhigayga ah waxaan ugu baaqayaa iyagana inay ka faa'iideystaan runtii cilmiga halkan yaala oo ay u soo wax akhristoontaan intii ay waqtigooda iyo haysiiyay ay iskaga lumin lahaayeen meelo kale ama ay drugs ay isticmaal lahaayeen ama waxyaabo kale markaa noloshooda wax badan ka bedelay inay ku soo xidhmaan oo ay wax akhriyaan runtiina marka qofku wax akhriyo ayuu inta badan wax isbedeli karaa oo isbedel keeni karaa buugta halkan taala tirahan waxay kor u dhaafaysaa 4,000 buug ayay buugtani kor u dhaafaysaa maadaama buugta inta la taalo waxay ku kala qoran yihiin luqado kala duwan oo ay ugu horeeyaan luqadda Ingiriisidu Soomaaliga ku xigto iyo sidoo kale ay Carabiga ku xigto buugtani waxa si kala baxdaa buuga kala duwan iyo noocyo kala duwan sooyaalkii baa kamida maxaan ku raadiyay suugaantii baa kamida luqadii baa kamida maxaan ku raadayay halka baradii oo buugtii dhiirigelinta iyo noocyada kala duwan ayaa kamida sheekooyinkii oo kala duwan ayaa kamida maxaan ku raadayay kitaabadii ayaa kamida caafimaadkii baa kamida maxaan ku raadayay iyo kombiyuutarkii iyo nooc kasta oo buug loo baahdo ayaa kamida buugta inta laga ku jiro kamid yihiin intaas oo buug ayaa yaala kaliya inta mar rajeynayno inaanu ka sii badino buug ka badan imkaan keeno ayaan ku haweynaa insha Allah rajeynayna buugan Aalmin Al-Mufti oo ah buug xambaarsan qisooyin fara badan iyo dhacdo rumaad waxa ay isu tigiliyay inaan helo amaan xogta halkan ku taala aan hantiyo oo maankayga ay maanta bulshada ku xadra ahaato naadiga akhriska qoraalka ee anfac waan uga mahadnaqayaa